munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayay xafiiska cusub ee Somaliland ay ka furatay magaalada Melbourne ee dalka Australia in maanta xafiis ay Somaliland yeelato oo dalkan Australia dabcan qaarad ah oo meelo badan oo Europe hadii la qiyaas maanta ka weyn laakiin nasiib darro aan laga warqabin Australia yani barwaaqada taalo horumarka iyo wadankani sidoo uu dahan yahay isla markaasna adduunka inta kale ama baan raahdo gaar ahaan Soomaali meel ka soo ku nooshahay aan aad looga warqabin waxaana goobta ka hadlay mas'uuliyiin kala mathalayay xisbiyada siyaasadeed ee Somaliland xafiiskan suurta galiyay oo mahad iska leh Master Sharmarke oo ah nin had iyo jeer u jaban inuu bulshadiisa si hagar la'aan uga shaqeeyo wuxuu noqon doonaa xafiiskani mid u shaqeeya dhammaan ummadda reer Somaliland oo dhan waa hadaan nahay xisbigaas ucud laanta Australia waxaanu ku garab taaganahay Sharmarke balashire wax kasta oo wadankii wax loogu qabanayo dhamaantayo haddana waxaan Sydney uga imi honestly wax kale ahayn waxaan uga imi in xafladan oo ah taariikhi yani 4-5 January marka ay inta dhabarkeena ku jirta dambe ay ajradan daawadan waxa imanaysa war xafladii ugu horeysay iyo dadkii ugu horeeyay ay halka xajradan waxay galaysaa in taariikhda loo dhigo dadaal fara badan iyo shaqo badan iyo orod badan ka bacdi ilaahay wuxuu ku guuleeyay xafiiskaasi inuu furmo oo sababtiisa lahaa Sharmarke Maxamed Xuseen aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa shaqo aad u muhiim ah oo cid walba saareed ayuu hawl badan buu dadka ka furtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan furitaanka xafiiska reer Somaliland kaasoo wax badan qabanaya oo hormood ka yahay Maxamed Xuseen oo Sharmarke loo yaqaan ama balishire anagu dhinacayagii waan biroonay laakiin waxaan doonayaa xukuumadda Somaliland iyana wixii dhinacooda looga baahnaa wixii ku xidhan ee xafiiska ka dhiman inay ka soo dhameystirto ayaan jecelahay oo u gudbinay fariinta xukuumadda Somaliland madaxweynaha Mr Maxamed Axmed Maxamed Siilaanyo iyo wasiirka arrimaha dibadda أنا أبو فرح سنة ما أنت إنه كسر قيب قاله ده فركيسة حفيز كلا فريق سومالان تاجر وأقول لنا هاي سومالان إنه تاجرنا واجب بنوت هاي إن مسؤول سومالان كسعودنا ونلاقوا المولا فريسنا فيصل على ورابوها xafiiskan ay Somaliland ka furatay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxa aan kala sheekaystay wakiilka Somaliland ee dalkan Australia Sharmarke balashire waxana aan weydiiyay baahida keentay in xilligan xafiis halkan laga furo markii aan ogaanay in wadankan in wax weyn ka tari karo baahiya ka jira Somaliland haddii noqoto xag ganacsi xag maalgashi iyo xag siyaasadeed intaba iyo xag caawimo mataqaanaa gargaar caalami intaba waa hubal in Somaliland ay helayso aqoonsi xafiiska Somaliland ay ka furatay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxa uu noqonayaa xafiiskii ugu horeeyay ee ku yeelato dalkan Australia sida uu sheegay wakiilka Somaliland ee Australia Sharmarke balashire in xafiiskan uu noqon doono mid xiriiriya Somaliland jaaliyadeeda iyo waliba dawladda Australia Brian Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia